laga burburiyay aan ognahay oo nin alla ninkii xanaaqaba uu aadayay dawladda shisheeye uu dhaqaale ka raadsanayo hub marka Soomaaliya nabadeeda waa inay ka soo xirto meeshii burburku ka soo bilowday cause and effect maxaa sababay in qofkan Soomaaliga uu cararo ajnabi doonto waa laga xoog badiyay waa la ciilay waa cabsaday xalka marka intuu jira inaan cabsida ka deyno keena wax isbidayo ka kala aanu cabsi gelin meesha xalku naga jiraa waa kaas laakiin inaan qasabno dadka on qoryo u qaadano on qaar qaxino on qaar handadno on qaar ciqaabno on waxa iimaanayso on waa tagayaan qofku muxuu ahaay si wuxuu sameyn karo sameynaya ninka aan sharafta rabin wuxuu rabaa maanta kaliya rabaa laakiin annaga waxaan u soconnaa biri iyo 100 sano dambe yaa u soconnaa qofka maanta u socdo wuxuu rabaa luf midka aflagaadada jidka la taagan midka kalmadaha xanafta la jidka la taagan midka danqinaya boogaha shalay haarihi shalay dhibaatadii shalay gaartay xogaya ee ka dhiijinay ee danqinayo Soomaaliya waxba uma hayo nabadiina xagee nooga luntay in la isweydiiyaa la rabaa nabadu waxay nooga luntay dhexdeena ma aha Soomaali waxba isuma qabto Soomaali waa la isku diray dad shisheeya yaa isku diray Soomaali burburka Soomaaliya dibadda uga yimid khaasatan markii annaga Itoobiya aan dagaalnay annaga dawladnimada gacanayna isaga baabi'inay annaga oo kaliya ayaana gacmeena dawladnimada ku dhisi karno ku soo celi karno yaanan blaming others hebela ilahay caliya ilaha asha ilahay waa qof mas'uuliyadiisa ka cararay waay dalka annaga iskale annagu naga burburay annaga qayb ku lahayn inaan burburino hadiiba ajnabi iyo dad cadow noo ah ay waxayeen annaga sabab u ah maxay ahaaday masaarigeed ma goysay geed kala isku dayda inay hor istaagto qarnimada Soomaaliyeed dawladnimada Soomaaliyeed sharafka Soomaaliyeed wallahi gacan adagan ku qabanayna wallahi baan idinku dhaartay ciduu raba ha ahaado dawlad xog badan dadka gacan adag ku qabata dadka cimrigooda heloon aanu kamid ah waa soo joognay waxa maanta joognaa ka dhaxalnay dawlad dadka gacan adag ku qabato qaanuun iyo shuruuc aan u baahannahay gacan adag ku qabatay shakhsiyaad gacan adag ku qabta dadku uma baahan marka dadku in ay qawaaniinta iyo nidaamkana waa inay ka dhacarkaan in ay maslaxadooda ka turjumay waxay aaminsan yihiin qaanuunku qaanuun aaminsan inuu yahay waxa ay danaynayaan qaanuunku mid difaacayo waxaas inuu yahay sharafta iyo karaamadooda ayagu dadku siday u arkaan mid difaacayo ilaalinaya qaanuunku inuu yahay laakiin qaanuunka haddii loo arko mida diintii waxba ku falayno ilaalinayno ku xadgudbayo oo sharaftii dadku ay lahaayeen ku xadgudbayo dhaqankii iyo qoyskii iyo sunolonaashii ku xadgudbayo oo beelihii meelo degan ay ku xadgudbayo waxba